wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Cabdilaahi Faarax Cabdi ayaa daahfuray kulanka wadaagaha macdanta iyo shidaalka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda macdanta iyo tamartu waxaana ka soo qayb galay kulankaasi mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta ugu horeeya wasiirka wasaaraddaasi mas'uuliyiin ka socday komishanka tamarta qaar ka mid ah shirkadaha macdanta iyo korontada dalka aqoon-yahan iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa kulanka si rasmi ah u daahfuray wasiirka macdanta iyo tamarta Somaliland Cabdilaahi Faarax Cabdi waxaan si diiran idinku soo dhaweynayaa shirka wadaaga tamarta shidaalka iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad ugu faraxsanahay in la igu maamuuso furitaanka shirkan maanta wadaagaha tamarta shidaalka iyo macdanta waa buddiga horumarinta dhaqanka dhaqaale ee Somaliland iyo hiisiga 20 iyo 30 amba 2030 wadaagani waxa uu qayb ka yahay laba tiir oo kamid ah hiisiga horumarka dhaqanka dhaqaale ee Somaliland 2030 tamartu waxay qayb ka tahay tiirka koobaad iyo labaad pillars 1 and 2 pillarka koobaad amba tiirka koobaad ee hiisiga dhaqaalaha horumarsan oo muwaadiniintu ku noolaadaan dhaqaale horumarsan iyo dhimista heerka saboolnimada iyo bilarka labaad oo kaabayaasha horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee oo hiigsigu yahay in la gaadho bulsho aad u horumarsan dhinaca kaabayaasha dhaqaale iyo horumarinta bulshada waxaan rajaynayaa in kulankani ay ka soo baxaan afkaar midho dhaliya oo lagu horumarinayo wadaagayaasha tamarta iyo macdanta iyo shidaalka ee dalkeena waxaan rajaynayaa inaan ka helo fursad isbedel lagu curiyo si loo horumariyo wadaaga tamarta macdanta iyo shidaalka ee Jamhuuriyadda Somaliland mudanayaal iyo marmooyin shirku waa inoo furan yahay geestooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda macdanta iyo komishanka tamarta Somaliland waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankan wadaagaha tamarta macdanta iyo shidaalka ee ku salaysan ama la jaan qaadaya qorshaha qaranka ee lagaga wada hadlayo shaqooyinkii ka socday wadaagahan energy and extractiveska activitiesga imika socda challengeska jira iyo halka loo socdo si qorshaha qaranka ee lagu horumarinayo wadaagahan loo gaadho waa shaqo aynu u baahanahay dhammaanteen inaan gacmaha isqabsano si wada jira loo fuliyo si hiigsiga guud ee qaranka ee ku aadan wadaagahan energy and extractiveska loo gaadho waxa la jeenayaa in warbixino iyo activities kaalkeeno marayaan ay la wadaagaan tiimamka insha Allah energy-gu waa waxa koowaad ee ay nolosheena ku xiran tahay qof kasto bini'aadani ama shirkad ha noqoto ama baamushar ha noqoto ama hooy ha noqoto qof kasto energy buu baahan wana arkaynaa halkay wax taagayeen gabagabadii waxaa halkaasi lagu soo bandhigay xog ururin ay samaysay wasaaraddu kaasi oo lagu faahfaahinayay wadaagaha macdanta iyo shidaalka Somaliland Maxamed Cabdiraxmaan Kalson TV Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed